السلام عليكم أصحابتا wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka Mareykanka hadda waxa ay qiranaysaa tirada askarta Mareykanka uga dhaawacantay dagaalka Iiraan ay kula jiraan oo hadda maalintii 11aad ku jira in 140 askari ay dhantahay 140 askari inay dhantahay markii hore arrintan lama sheegin ilaa hadda Mareykanku dhimashada 7 askari ayay sheeganayaan laakiin in intaasi ka badan tahay ayaa loo badinayaa dhimashadu Iiraan waxay leedahay dhimashadu intaasi waa ay ka badan tahay oo shacabka Mareykanka laga qarinaya laakiin in xilligan la sheego in dadka ama askarta ku dhaawacantay dagaalkan ay 140 askari ay dhan yihiin oo waliba la leeyahay in 8 kamid ah dhaawacooda waa halis laakiin intooda badanna dhaawacooda waa u fudud yahay arrintan waxay muuqataa qasaaraha Mareykanku inta uu sheeganayo iyo inta uu qarinayo inay badan tahay waxaan ognahay saldhigyadiisii uu ku lahaa bariga dhexe sida in Bahrain in Qatar iyo sidoo kalena Kuwait in la burburiyay gabi ahaantiisba oo xitaa wadamadaasi laga yaabo inay yiraahdaan Mareykan waa dad sidan tihiin danta Israa'iil oo kaliya ayaad fiirinaysaa mar dambe dib noogu soo laabanina marka Trump shalay waxa uu xubnaha Congress-ka maruu Florida kula kulmayay Republican-ka gaar ahaan kuwa Republican-ka uu ku yiri dagaalkan ujeedadii aan kala hayn waa ka gaarnay marka waan soo gabagabeynaa laakiin arrintu sidaas ma aha Mareykanku dagaalkan siimo wadi karo laakiin Iiraan waxay leedahay anaga 2 mar ayaa godnal ka qaniino wada hadal been internal ku mashquuliyay bishii June 12 maalmood iyo hadda midkan bilowgiisii wada hadalna ku mashquuliyay markaasna la soo gaaday laakiin god saddexaadna la kama qaniinayo oo mar saddexaadna lama gaadayo anaga markaan go'aansano ayaan xabadda joojinayna Israa'iilna hadda waxay taagan tahay naga soo gaaro waa xishoonayaan waxay ka xishoonayaan inay yiraahdaan xabad joojinaan u baahanahay mooyaan wadamo kale ay hadda soo marayaan sida Faransiiska iyo Ingiriiska ay leeyihiin waran nimankii ergahana loo ka geeyay Iiraan la dhihi jiray habeen kastana gantaalo kala duwan oo mid waliba midka kale uu ka sii daran yahay ayaa loo soo dirayaa dufcadii 33aad hadda xalay loo soo diray marka Mareykanku 6 bilyan uga baxda la leeyahay 10kii maalmood ugu horeysay dagaalkan waxay leeyihiin 5,000 oo bartilmaameed ayaan duqeynay hadda hubkii xitaa uu ku sii yaraanaya oo tii aan warkii hore idinku sheegay oo Mareykanku shirkadii hubka soo saarayay wasaaradda gaashaandhigga kontraktyada kula jira wuxuu leeyahay hub badan noo soo saara marka sida muuqata Mareykanka Israa'iil dagaanka waa ay ku fashilmeen ujeedada ay u tageen Iiraan waxay ahayd regime change wax la yiraahdo inay sameeyaan inay hoggaankaasi oo idil ka taqalusaan laakiin oday 86 jir ayay dileen waxay ka dhaxleen wiil uu dhalay oo luqadda Englishka si fluent uga hadlo kana xag jirsan oo ay in hadda uu hoggaankii loo dhiibo 56 jir ah oo waliba nin da'yar ah walow ilaa hadda uu san hadlin oo warbaahinta uu san la hadlin laakiin waxa la leeyahay wax loo maleynayaa dhaawacii hooyadii aabihii iyo xaaskiisii lagu dilay inuu dhaawac ka soo gaaray inkastoo dhaawac haliseen qof dhaawac halis kulay lama doorteen marka Mareykanku hadda wuxuu leeyahay 140 askari ayay marayaan askarta nooga dhaawacanto 8 kamid ah dhaawacooda halisiin oo laga yaabo inay u rawaxaan laakiin dhimashada inta la qarinayo maxay dhantahay talow hadda 7 kaliya oo qirteen waxay Iiraan leedahay shacabka Mareykanka laga qarinayay arrintu intaas waa ka badan tahay shidaalkii waa kan cirka isku sii shareeray walow Trump markuu yiri dagaalkan waan soo gabagabeynaya dhawaano ujeedadii aan kala hawan ka gaaray xogaa hoos u dhac laga dareemayo shidaalkii laakiin Iiraan uma muuqato inay wada hadal diyaar u tahay waxay leedahay waana la ku soo galdarooday dadkeenii ayaa la dhameeyay mas'uuliyiinteenii ayaa la dilay wadankeenii qaybo kamid ah la burburiyay marka inagu markaan go'aansano ayaan dagaalkan joojinayna Mareykankuna siima wadi karo arrintan iyo Israa'iil siima wadi karaan marka balayno aragno Mareykanku waxyaabaha kale oo qiran doono hadda 140 askari sheegayaan oo dhaawaca dhimashada 7 ayay sheeganayaan in waxay leeyihiin 8 hadda dhaawacooda waa halis oo qaarkood inay u geeriyoodaan laga yaabo wixii soo kordhay stay tuned insha Allah thank you